السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كنا ورا صلاح الدين الأيوبي كان قال لي waxaan soo kala ku sheegnay nin magaciisa la dhaho Nuuruddin Zenki oo aan ku tilmaamnay inuu ahaa ninka sababta ugu weyn lahayd in Quds la furto Salaah Diin laftirkiisana ina baray. haddaba Nuuruddin Zenki muqaalkan inay taariikhdiisa kaga hadlayna qof walba muslimana ceeb ay ku tahay taariikhan oo kala baran waayo. fadlan hadda noo cusubtay subscribe saar noola socoto muuqaalada dambe daawasho wacan. Nuuruddin Mahmoud Zenki wuxuu dhashay 12 February 1986 miilaadiga wuxuuna geeriyooday bishii May 1979 miilaadiga da'diisu soo jirta 59 laakiin maruu dunida wax badan ka bedelay kadib aabihi magaciisa wuxuu ahaa Ibaaduddin Zenki nin jacaylka iyo akhlaaqda wanaagsan ku soo caan baxay waana tuu ka raacay Nuuruddin aabihi Nuuruddin Zenki wuxuu ahaa wiilka labaad curadkuna wuxuu ahaa Sayfuddin Ghazi labadooduba aabood waxay ka raaceen jacaylka akhlaaqda wanaagsan si kor ku soo sheegnayba Nuuruddin Zenki wuxuu soo baxay oo la bartay waqti ay Saliibiyiintii Falastiin joogtay ciidamadoodu aad u xooganaayeen muslimiintana dhibaato badan u geysteen muslimiinta laftirkooda dhexdoodana ay kala qaybsanaan iyo dhibaato badan dhexdooda taale nin Nuuruddin Zenki oo kala ahna loo baahnaa waqtigaas xaaladda muslimiintu waqtiga ku sugnaayeen waa xaalad ka darneed oo ka fool xumay xaaladdan maanta ku sugannahay haddana saasay tahay ilaaha markii Nuuruddin Zenki wuxuu ku guuleystay inuu muslimiinta rajadooda soo celiyo dadaaladiisa waxa sii horaan qaaday Salaahuddin al-Ayyubi haddaba dhimashada Ibaaduddin Zenki labadiisii wiil ee Nuuruddin Zenki iyo Sayfuddin al-Ghazi waxay kala qaybsadeen boqortooyadii abood Nuuruddin Zenki wuxuu ka taliyay magaalada Xalab ee Suuriya xagga Sayfuddin al-Ghazi ka taliyay magaalada Muusil ee Ciraaq ku taal haddaba magaalada Xalab ee Nuuruddin Zenki ka taliyay waxa furintii u horeysay ee muslimiintii isku hor fadhiyeen Saliibiyiintii Falastiin joogay taasoo keentay in khatarto badan ay saarnaato Nuuruddin Zenki iyo magaaladu ka taliyay ee Xalab haddaba Nuuruddin Zenki magaalada Xalab markuu qabsaday kadib wuxuu bilaabay inuu ciidan ururiyo weerarna ku qaado boqortooyada Antakiya lagu magacaabay ee waqooyiga Shaam ku taalay ama koonfurta Turkiga boqortooyada meesha ku taala markaan eegno meel istiraatiiji ku taalay madaxa muslimiinta dhulkoodana way ku taalay soo kale oo khatar aad u badan ay ku hayeen muslimiinta Shaam ku nool oo dhan Nuuruddin Zenki ciidamada uu diyaariyay weerarna ku qaaday waxaanu ku guuleystay inuu furto qalcadooyin u dhawaa boqortooyada Antakiya Saliibiyiintii Falastiin joogay oo ku faraxsanaa dhimashada Ibaaduddin Zenki oo isla hawad ka raaxaysateen ayaa hal mar ku baraarugay wiilkiisii oo isagii ka daranbo halisna ku noqday joogitaankoodii Falastiin ay joogeen haddaba waxaa jirta magaalo ruuxa lagu magacaabo oo Nuuruddin aabihi ka qabsay Saliibiyiinta waqtigiisii laakiin dhimashadiisa kadib ay Saliibiyiintii damcaan inay soo ceshtaan magaaladoodii maadaama moodeen Nuuruddin Zenki inaanu difaaci karin haddaba ciidamadii Saliibiyiintu markay soo warreen magaaladii ruuxa Nuuruddin Zenki uu ka hortagay waxaan u gaarsiiyay jab aad u weyn oo in muddo aan soo gaarin haddaba muslimiintii caalamka islaamku noolaa markay maqleen Nuuruddin Zenki soo Saliibiyiinta jab ku soo gaarsiiyay aad ay u farxeen kadib sanado badan oo muslimiinta la jabinayay oo laakiin marka rajadii ay soo noqotay haddaba hadafka weyn ee Nuuruddin Zenki wuxuu ahaa inuu muslimiinta mideeyo ama ugu yaraan muslimiinta Shaam joogtay inuu mideeyo sababtoo ah Falastiin waxa ku sugnaa in ka badan 1 milyan oo ciidamadii Saliibiyiinta ahaa mana jirin qaab kale loo waajaho oo aan ahayn in muslimiintu midoobaan kadibna hal mar la wada weeraro meeshu isagu ka talinayna meel aad u yar ay ahayd oo Xalab kaliya iyo magaalooyinka loo soo raaca ay ahaayeen haddaba Saliibiyiintii ayaa mar labaad xamle labaad oo weyn soo qaaday ama weerar labaad oo weyn oo ay rabeen markan in Shaam oo dhan ku qabsadaan waxaana weerarkan ka soo qayb galay oo yimid boqorradii Yurub oo uu ka mid ahaa boqorkii Louis-kii 7aad ee Faransiiska xukumayay isagana hogaaminayay weerarkan waxaana soo kale ka soo qayb galay weerarkan boqorkii Jarmalka ee Konraadkii 3aad boqorradaas oo inta xukunkoodii iyo boqortooyadoodii ka yimaadeen u soo shaqo tagayna Shaam qabsadaan oo muslimiinta ka farmaroojiyaan haddaba ciidamada badan ee soo urursaday waxa hor istaagay Nuuruddin Zenki meelo aad u fara badan ku jabiyay waana ku guuldarraysan Shaam furtaan oo waxa hor istaagay Nuuruddin Zenki oo dhinacan u dhaaf waayeen oo ilaaha markii Nuuruddin Zenki ayaa dhagax la hor dhigay ku noqday oo meel u dhaaf waayeen meeshay tagaanba ay sidaan furta Nuuruddin ayaa joogay oo ku soo jabinayay haddaba Nuuruddin Zenki oo ka faa'iideysanay jabka uu soo gaarsiiyay Saliibiyiinta iyo muslimiinta oo isagu arkay nin lagu daba safan karo oo jihaad jecel oo aan xukun rabin ayaa wuxuu weerar ku qaaday boqortooyada Antakiya lagu magacaabay kor ku soo sheegnay markii hore qalcadi ku ararsnaa buu furtay laakiin markan boqortooyada laftarkeedii ay weerar ku qaaday boqorkii Antakiya ka taliyay ee Buwaati lagu magacaabay markuu maqlay Nuuruddin Zenki muslimiinta inuu ku soo socdaan isaga laftarkiisa intuu ciidan diyaarsado soo baxay muslimiinta
dagaal adag kadib muslimiintu waxay ku guuleysteen inay jabiyaan ciidankii Buwate watay ee boqortooyada Antakiya waxaana bartaas lagu dilay oo kamid ah dadkii la dilay boqorka laftarkiisii Buwate. haddaba Nuruddin Zanki saliibiintii markuu dhankii waqooyiga ka soo xidhay saliibiintu waxay u jeesteen dhanka koonfurta Masar waxaana damcaan bani Masar qabsan maadaama ay dawlad yar oo daciif ka tinayso markaas sii dhacaysay oo Faatimiin la baxday inkastoo wacnayn sida culimadu sheegteen Faatimiin lagu yeero maadaama wax nasab ah la lahayn Faatimatu Zahra gabadhii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo dhamaantood ka tafeerman ninkii dawladda asaasay Ubaydi lagu magacaabo oo ay wacantay Ubaydiyiin lagu yeero. haddaba dawladdan shiicada Ismaaciiliinta oo muuqaalkii horena ku sheegnay oo muslimiinta sunniyiinta dhibaato badan u geysatay dawlad aad u xun ahayd oo soo kala ahayd dawladda sababta u weyn lahayd in Quds saliibiintu ku soo duulaan qabsadaan. haddaba khatarta weyn muslimiinta haysatay waxa ahayd maadaama saliibiintii 1 milyan ka badnaa ciidankoodu ay Falastiin fadhiyaan Falastiin haystaan haddii ay Masar ku duulaan Masar qabsadaan musiibad weyn ay muslimiinta ku noqonaysa. Nuruddin Zanki khatartaas ay u dareemay waxaanu bilaabay inuu weerar ku qaado ciidamadii Falastiin fadhiyay saliibiinta soo uga mashquulinay dhanka Masar ku sii jeestaan oo isku dayeen in Masar qabsadaan. waxaana isla markii uu bilowday tartan u dhaxeeya saliibiinta iyo muslimiinta Nuruddin Zanki hogaaminayay oo loo tartamay dawladda Masar ee daciifka ah sii dhacaysa boqorka aad ku liitan uu xukumayo. Nuruddin Zanki wuxuu isla markiiba dareemid kamid ah abaanduulayaashiisa uga wada badnaa oo lagu magacaabo Asaduddin Shirko waxaana la socday Asaduddin Shirko wiilku adeerka u ahaa Salaaxuddin Ayyubi oo 25 jir ah markaasna Salaaxuddin lama aqoonin wali. intii Asaduddin Shirko iyo Salaaxuddin Ayyubi sii socdeen Masar Nuruddin Zanki iyo ciidankiisii ayaa si gaadma ama dagaal gaadma saliibiinta ku gaadeen waxayna dileen muslimiin aad u fara badan. Nuruddin Zanki laftirkiisu si darqi ah ayuu ku badbaaday waanu ka baxsaday goobtii dagaalka ilaaha markii dagaalkaasna waxa la dhahaa Buqayca oo Nuruddin Zanki aad ay uga cadhooday waanu ka murugooday rajaa wuxuu lahaa in Falastiin furto uu isagu weerarka qaado saliibiinta meesha ka saaro laakiin isagii ayaa la soo weeraro la jabiyay. markaas weediisa caanka ahayd yidhi wallaahi inaan harsan doonin ilaa inta soo argoosanayo muslimiintan uu soo argudayo. waxaan isla markii weerar ku qaaday saliibiintii Falastiin joogtay saliibiintii markay arkeen ninkan ay shalay jabinayeen oo haddana soo taagan oo soo weeraraya waaba ka baqeenba waxaana soo bandhigeen heshiis laakiin uu ka diiday. waxaana haddana saliibiintii iyo Nuruddin Zanki ku kulmeen goob dagaal oo kale xaarim la dhaado waxaana Nuruddin ka dilay saliibiintii 10,000 waxaan soo kala soo qafaashay in ka badan 10,000 oo kale waxaana kamid ahaa hogaamiyaashoodii iyo madaxdoodiiba. Asaduddin Shirko iyo Salaaxuddin Ayyubi soo kale waxay ku guuleysteen inay Masar tagaan markii Masar soo tageen Asaduddin Shirko wuxuu ahaa nin siyaasadeed wada hadal iyo waxaas iska jecel laakiin Salaaxuddin Ayyubi ka diiday oo boqorka Masar ka tilay waqtigaas boqor khayna ayuu ahaa. Salaaxuddin taas uu adkeysan waayay intuu ciidanka haystay oo qalcadii boqorka u daateen ay boqorkii ka takhaluso kurka ka jaray waxaana wasiir ka noqday Asaduddin Shirko Masar saasana ku hoos keenay xukunkii Masar Nuruddin Zanki. xagaas ayna ku dhamaatay dawladii Faatimiinta la baxday ee Ubaydiyiinta loo dhinay ee muddada badan ka soo tilinaysa Masar muslimiintana aad u kadeeday sababta uu weyn lahayd in Falastiin la qabsado. 2 bilood kadib waxa geeriyooday ninkii xukumayay Masar Asaduddin Shirko waxaanu geeridii kadib loo magacaabay oo Nuruddin Zanki Masar u magacaabay Salaaxuddin Ayyubi. xagaas ayna Salaaxuddin ka soo bilaabay xukunkiisii isagoo hoos imaanay Nuruddin Zanki oo wasiir u ah. qaabku Salaaxuddin Ayyubi u maamulay Masar muuqaalkii hore Salaaxuddin Ayyubi kaga hadlaynay aynu ku soo sheegnay commentiga hoose linkiisa soo dhigi karaa waa soo daawan kartaa. haddaba saliibiyiintii arrintu ay ku cuslaatay koonfurta waxa ka fadhiya Masar Salaaxuddin Ayyubi waqooyigana waxa ka fadhiya Nuruddin Zanki oo markiisii hore ay meel u dhaaf waayeen laakiin waxa geeriyooday ilaaha markii oo tii ilaaha u timid Nuruddin Zanki bishii May 15 1979 miilaadiga xagaas ayuu Salaaxuddin Ayyubi ka sii wada hawshii furashada Quds ahayd iyo la dagaalankii saliibiyiinta. haddaba Nuruddin Zanki wuxuu ahaa ninka sababta ugu weyn wadadan uu sii xaaray Salaaxuddin Ayyubi inuu furto Quds. culimada qaarkood oo ka mid yahay Sheekh Taariq Suweydaan wuxuu qabaabay in Nuruddin Zanki sababta ugu weyn u lahaa in la furto Quds hawsha badan oo isagu qabtay. Nuruddin Zanki uu ahaa ninka arrimaha isku sii hagaajiyay ilaa markii uu Salaaxuddin Ayyubi yimid uu isagu dhameystiray. Salaaxuddin Ayyubi wuxuu ninkii ka faa'iiday dadaalkii Nuruddin Zanki oo Ilaahay gacantiisa ku furtay. Ilaahay uu naxariistay Nuruddin Zanki iyo Salaaxuddin Ayyubi iyo soo kale muslimiinta dhamaantood muuqaalkani maanta ay kaga hadlayeen Nuruddin Zanki intaas uu noogu yahay